saacadaha ay ka kooban yihiin maalmaha ka hadhay doorashada madaxtinimada Somaliland waa iskurayaan banaanbaxyada isbedel doonkuna waxay galeen maalintii lixaad murashaxa shacabkuna banaanbaxa lixaad gobol weynaha Sanaag ayuu kaga qayb galayaa Ciro wuxuu marashixiinta kala dheer yahay qancinta shacabka isbedelka u ooman oo inay dhaayaha saaraan murashaxa jiha kastaba uga gacan haadinaya mudanuhu qaybtood banaanbaxyada habeenkii ayuu kala qayb galayay tan iyo markuu bilaabmay ololaha doorashooyinka Somaliland inta waqtigu u saamaxo barka kalena dharaartii xalay deegaanada Hulul ee gobolka Sanaag ayuu shacabka kala banaanbaxayay Hulul deegaanka Aradan wax qabad sidoo kalena dib u dhac ka taagan iyo duruufaha ku gadaamani ay yihiin kuwa baday reer Hulul inay khariirada qaranka iska dhexraadiyaan ma ka mid tihiin mise waa ka maqan tihiin Hulul dabadeed waa subax murashaxa umadu hoggaanka ayuu wafdiga u soo dhiftay tuulo iyo magaalada xalay lagama seexan banaanka ayay u tuban yihiin waxay ku baratamayaan isugu awood sheegashada magaalo kastaaba doorka ay ka geysatay isbedelka bilashadiisii 5 maalmood kaliya ka hadhay xisbiyada baratamaya xilligan kaliya ma ay kala tagin waxa wadani bari min galbeed u muuqda ku dhigay aqlabiyada shacabka gacanta halkani waa magaalada Kalshiikh dabadeed tani waa kalmac kadib waa Yufle waqtigu waa cidhiidhi hase yeeshee mudanaha isbedelku raaligelinta shacabka ayuu ku foogan yahay tuulo iyo magaalo midna ma dhaafayo Yufle isla gudaheeda intaanu ka soo bixin Dr. Ciro wafdigiisu waxa wafdiga murashaxa daf u soo yiri boqolaal gaadiidka isbedel doonku wato ah kuwaasoo sugi karila inta uu ceerigaabo ka soo gaadhayo maalintan iyo waxa isbedel doonku sameynayaan maaha waxaynu shaqo ku leenahay waxayna u muuqdaan dabaylo xagga rabaaniga ka socda halkani 7 kiiloomitir ayay u jirtaa ceerigaabo dhalle iyo dhallaan balug ayay ku yimaadeen ma ay daalayaan mana heeti soconayaan balse way gucleynayaan bulshadii way iskacday waxay boqoradeen fagaaraha aynu gaadhnee badaluu kulmiye badaluu gudoomiyaha iyo saraakiisha garbihiisu si aanay shacab weynaha banaanka dartood u soo baxay waxba ugu dhaxaynin dusha waxay ka saaran yihiin baabuur dul furan waa u gacan haadinayaan way daba kacayaan baabuurtuna taayirka ayaa loo rogayaa si aanay shacabka dareenka dalka ka curtay dibadda u soo saaray aanay u daalin ceerigaabo ayaa irida laga soo galay xaalku waa ceeryoon wadooyinku waa cidhiidhi waana xidhan yihiin magaaladuna cidhif waa isla guuxaysaa sidan ayay ahayd jawiga ceerigaabo iyo maanta waa dhabti iyo dhaxalgalkii bulshadagaha iyo dhaayaha furo maanta waa dhabti iyo dhaxalgalkii bulshadagaha iyo dhaayaha furo beertii xurriyadda oo hore u ahayd fagaaraha baratanka sidoo kalena ahayd fagaare xisbiyada midaan shacab hayn ku taag daran mid kali socoda iyo ku kaleba fagaare u xilqariya saaka bahwadaagta isbaldaldoonku si ay ugu quuskooyaan kuwa maalmaha dibutirintooda 5 kaliya u hadhay waxay doonyeysteen oo u xidhan istaadiyumka kubadda cagta ee ceerigaabo oo kamida garoomada kubadda lagu ciyaaro ee dalka kuwooda ugu waaweyn murashaxu fagaaraha ayuu soo galay jawiguna wuxuu ahaa daga kuma dhismo keligii doobyaha talada ka duda daraja ma hele daga kuma dhismo keligii doobyaha talada ka duda daraja ma hele
murashaxa bulshadu wadato ka hor waxaa shacabka fagaarahaasi kala hadlay cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi waro ceelgaabo maaha ama sanaag maaha 4 qabiil waa 11 qabiil 11kii qabiilba boqolkiiba 9 halkan ay joogaan waxayna diyaar u yihiin inay foodka ku siiyaan sharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi waxaad tusteen inaad jeceshihiin inaad karaamayseen inaad dhammaantiin reer ceelgaabo isku duuban aad codkiisa siiseen codkiina aad siiseen sidaa darteed annaga oo ah guddigii kaambeynka gobolka annagana waadna sharafteen sidaad noo sharafteen ilaahay idin sharafo kaadadkiina adkaysta waxaa lagu dagaalamaya waa kaadka waxaan leeyahay guddoomiyaha waxaan la soo socday min boorame ilaa ceerigaabo إن شاء الله هو كلمة معقولة لكن وحلي مدحوين عبد الرحمن ومدحويني دورشنا وكسوا بحيانا قعدتي إنه كجرته intaasi kadib murashaxa oo shacabka dartii bacadka tan iyo saaka u tubnaa u damqanaya ayaa madarka looga yeedhay waxaan ku bedelaynaa anagu jeegaanta midnimo soo midnimada ma taageero soo Soomaaliland midaysan ma taageero soo Soomaaliland jeegaan ahayn ma taageero gobolkani waa gobolka dhul ahaan ugu weyn Soomaaliland gobolkan walaalayaal marka la eego waddanka wuxuu ka yahay boqolkiiba 40 waana gobol leh khayraad fara badan kow wuxuu leeyahay bad weyn oo dheer wuxuu leeyahay dekedo caan ah oo xiis iyo maydh ka mid yihiin oo taariikhdeena ka mid ah waa gobol ku habboon kalluumaysiga iyo in laga faa'iidaysto khayraadka badda barnaamijka xisbiga waxaa ku jira in dhammaan dekedii caankaa la soo nooleeyo oo ay ku jiraan xiis iyo maydh barnaamijka xisbiga waxaa ku jira inaynu kobcinno khayraadka badda si aynu uga faa'iidaysanno waxa uu leeyahay khayraad aynaan ka faa'iidaysan oo alloox berigii ugu dambaysay ee Soomaaliya ka shaqayn jiray looxa ugu badan ee laga sameeyo furniture-ka waxa laga keeni jiray gobolka Sanaag kama inaan faa'iidaysan Soomaaliland haddaynu nahay insha Allah barnaamijkii waxa ku jira in looxa aynu ka faa'iidaysano oo warshado looxa iyo waraaqda cadcad aynu isticmaalno laga sameeyo gobolka Sanaag maanta waa maalin kale mudanaha isbedelka kadib waxa masraxa soo fuulay sawtu raxma waa Yurube ustaad Cabdiraxmaan Oday iyo baalahooda oo halkaasi ka qaaday heesaha isbedelka kulmiye lagu caraabinayo sidoo kale iyaguna waxa fagaaraha ku sugnaa kooxda wadani baan maanta waa dhabti iyo dhaxalgalkii bulshadagaha iyo dhaayaha furo bulshadagaha iyo dhaayaha furo doolka unkudayaanka dhaansanee dhinac gala wadani 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 fagaarahaasi kadib shacabku mar kale way soo dareereen waxaana xidheen shaaracyada mudanaha rashadu shacabku dul hoganayso Dr. Ciro tan iyo xalay socodka uma uu kala jarin fagaaraha kadib wuxuu toos ugu dhaqaaqay deegaanada bariga Sanaag oo cagta soo dhigi doono Yubbe Hadaaftimo ilaa iyo Badhan Cabdirsaaq Teera magaalada Ceerigaabo